سياسي عبد الله هذا اللي ركم إذا سياسيين الصومالي وما توريس جار سيني تلفزيون كعالمي RTN هياك لحالة دكتة تاجن الصومالي لان يسيد واركو سياسة دارمها الدبدة الصومالي لان سعر برك يسيد وكلا رما دورو في فلك بحيي سياسي رما سكال لي وحاكم إذا هذا الذي سياسة دارمها الدبدة سياسة دارمها الدبدة واحد مدائمي كأنه إنه فاشل كتشوجنو وعاد مدائمي كأنه مقدم على الشيء dadkuna aad u shakiyay oo fahmi ba garin laayahay qaabka ay wax u socdaan waxaana loo baahan yahay shacabka iyo siyaasiyiintuba inay wada socdaan sidoo kale siyaasigu waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi ugu baaqay inuu xoog saaro gobolada bariga Soomaaliland maadaama aanay xukuumadihii kala duwan ay soo maray dalkani aanay xoog saari jirin gobolada bariga Soomaaliland heelaa dhowr madaxweyne oo iska dambeeyay afar waxa weeyaan wax walba waxa laga sameeyay ama mashaariic noqoto ama hay'adaha noqoto ama dhaamo ha noqoto ama rigaha ha noqoto ama waxyaalaha beeraha ha noqoto ama khayraadka waddanka ha noqoto boqolkiiba 70 galbeed la gelinay oo xoog la saaray halka wax soo daalo in ba soo gaadhay madaxweynayaasha hore ee uu dambeeyay maxamed Silaayo gobolkan bariga uu dhashay wax badan kabuu qaban marka maanta waxaan leeyahay halka waxaan leeyahay anigu hadii maanta Muuse Bixi weynaan wadadii hore marin weynu maanta isagu chance ka qaato oo gobolada bariga wixii khayraadka soo baxaya boqolkiiba 70 uu bariga u soo wareejiyo si iyaguna uu halka uga helo taariikh iyo dad shacabkiisa waayo shacabku haddaan maalmo meel la hagaajin meel wax iskaga daba dhacaan waxa weeyaan mushkilad bay noqonaysaa marka waxaan leeyahay jaaniskaas madaxweyne maanta waxa weeye wixii aad qabanayso waa inaad boqolkiiba 70 bariga u soo gudbiso oo madaxweynayaasha ka horeeyay galbeed wuxuu sameeyeen maanta bilcaks waxaan leeyahay adigu jaaniska qaado bariga oo wixii khayraad ah ee dalku leeyahay intii ka tagtay iyo inta soo socotaba xaq bay u leeyihiin weynaad wax uga qabatay ugu dambeyntii siyaasigu waxa ku hadlay sixir bararkani ka taagan qarankani Soomaaliland isla markaana saameyn ku yeeshay shacabka kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland hadaba siyaasigu arrimahaasi ka hadlay waxa kamid ah hadaladiisii qaabkan laga deeyo shirkadahan laga baadhay inaan halka ku jirin waayo waxa weeyaan dawaa adeeg bay dadka wuxuu kala gudbisaa waa hebel lacagta ugu weeyaan oo dad waxaad ku shubtay hadhow ta kala baxaysa laakiin anigu fikirka ka qaba waxa weeyaan weyn haadkara si la helo weeyaan haadkara si la helo oo la helo banka weyn banka qofku si caadi ah free weyn uga heli karo markuu banka tago inuu dollar ka heli karo weeyaan weyn dhaqaale abuur la sameeyo oo dalka wax soo saarkiisa iyo beerihiisa iyo xoolihiisa iyo weynu helaa dollar ku filan dalku weynu helo oo xoolaha la tayeeyo oo beeraha la tayeeyo oo xoolahan dollarkan faraha badan leh ee dibadda u specific gareynayno waxayni walba ay dibadda u baxayaan dollarku weynu noqdaa dollarka dibadda inuu baxaya wax yar noqdo waddankana weyn dhaqaale badan laga soo saaro oo dalka dakhliga boqolkiiba 70 waxa waddanka ka soo baxay inuu gudaheena ka soo saaray weeyaan Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga RTN Burco.